ma garanaysaa especially gabdhaha TikTok iyo wiilashaba ogaada dhansiyada qaar oo aad hindida uga dayanaysaan qaarkood inay yihiin cibaadadooda qaar baa cibaadaha walaal wad cibaadaysanaysaa isma ogid السلام عليكم أصحاب الشرف تلا كسر هذا channel كاسمه دانتو وحوي ما صاحبك كافي عبدي هديتك عصبت هاي اسمه دانتو فضلا وحويا سبسكرايب صار برنامج كنا هدي أذوق كه شيء سي أصحاب هذا كولا أركان أذوقنا يعني وحوي أسي شركة سي وأركان وحويا أصحاب الشرف تلا برنامج كان وحلي رحلة برنامج كان مجي عيسى وحلي رحلة قبلهن ما waxay ku fikirayaan inay nolosha la wadaagaan niman hindi ah maxaa qaldan waxa jirta aalad la yiraahdo TikTok oo cusub TikTok-gaas marka waxa isticmaala dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxaan qaar baa labisiyo u qaata waxa meelo qurux badan oo aada yani waxa qarash badan galiya kama yani waxa filin Bollywood duubayaan oo kale si ay u soo saaraan muuqaal qurux badan oo dadkooda ay ku raali galiyaan okay marka waxa weeyaan muuqaalada dadka ay ku raali galinayaan muxuu yahay ma sheeko qoran baa ma wax qofku wax ka faa'iidaya ma wax qofku ma garanaysa maya ma aha intaas midna ma qofkaas TikTok badana lama tago taalanti uu leeyahay wuxuu la tagaa wax dadyo kale ay sameysteen ama wuxuu sii horumariyaa oo dad badan u gaarsiiyaa fan dad badan oo kale ay leeyihiin isagoo badana aan ku faanin fanka Soomaaliya walow jiraan macnaha dhalinyaro badan iyaguna saara heesaha Soomaalida kuwii hore iyo kuwan dambe hadaba okay marka waxaan markaa leeyahay hindida waxa jira gabdho badan oo yani waxay li kalaftiin oo adila garanaysaan yani waxaan videogana wax yar aan idinka tusin doono oo aad arkaysaan bal horta wax yar muuqaalada TikTok iyo gabdhaha aan rabay inaan ka hadlo baan soo qaadanayaa wax yar ila daawada okay wasla wada aragnay waxa laga yaabaa dad badan oo asxaab ah inay ma garanaysaa isdhahan kaaf muxuu ka wadaa maanta ma gabdhaha TikTok baa ka baxsan la oo wacaynaya ana macaayo waxna kama sheegayo runtii waa gabdho Soomaaliyeed ma sha Allah aad u qurux badan mar walbana iga mudan sharaf iyo xushmad iyo ilaalin laga yaabo qaar badan oo jirana inaan dirisnahay ama bajarnahay ama isku wadana joogno qaarna aan isku wada joogno okay gabdhahaas marka يعني وحنا إيجا كل يوم وحنا أساقاتي TikTok ويبدين تبدأ هندي صار لك وحقات واتك أو بدن أو بدنك يعني وحنا هندي إسكالك دقة أما قابكو ونقمان أما بقى يعني وحنا أي لا قرح بناتي نلاش هندي دو إما قرنا يساعي يكون شاي مركب برنامج كمية مدي سوحويان أن كهت اليوم قبلها ما دعي كرتا إن معناها كوف فكريان إن لو ذا جان نلاش نمن هندي أما بقى سوتشي إذا تلكاس هندية ودنكو جوجو دونها لا جوجو أما هدي لندن جوجت من لندن كلنا نولها هذا هدي نيروبي جوجت من نيروبي كلنا نولها هذا هدي أمريكا جوجتنا هندي أمريكا كلنا نول هذا لكن يعني وحنا صارنا تركت كا أنا ما هو من اللي قبلها صح كفكريان إن نلاش لو ذا جان نمن هندية وغيران هدي اسم كفكرين حتى قبلها إني نين هندية نلاش لو ذا جان يعني وحنا كفكريان nin yani waxa sidoo kale xogaa uu ku abuuran yahay khiyaaliga hindigu in ay rabaan inay nolosha la wadaagaan okay markii aan leeyahay hindi يعني waxa weeyaan
hindi marka waxaan soo qaadanayaa intii aniga aan ka aqaano dhaqan ahaan mana caayo iyaga laftirkooda waxbana kama sheegay qof markuu wadan jecel horta waxaan arki jiray qof actor taageera ciyaaryahan taageera boxer taageera qof wrestling ciyaara taageera balse qof wadan dhaqankiis taageera rumaantii waa wax igu cusub way cusub tahay macnaha wadan dhaqankiis ama dhaqankay leeyihiin yani waxayna taageerto especially gabdhaha u banaadaan inkastoo wiilal badanna ay kusoo darsamayaan laga yaabo qaarkood xataa wiilashaas inay u jecel yihiin gabdhahaas maadaama hindi jecel yihiin iyaga laftirkooda hindi isaga dhigaan ma garanaysaa sida hindiga oo kale u ciyaaraan oo yani waxa Arjun Kapoor iyo Sahil Khan iyo Salman Khan iyo Shah Rukh Khan ay isku ekeysiyaan ayaga laftirkooda ay ku kalifayaan gabdhahaas okay gabdhaha qaarna waa laga yaabaa wiilasha qaar inay iska dhigaan nimankaas hindida ah saas darteed maadaama wiilashaas ay jecel yihiin iyagana iska dhigaan sida Kajal iyo Priyanka Chopra iyo Katrina Kaif iyo adiga ay gabdhahaas hindida ah ay iska dhigaan okay hindida marka intaan dhaqanka aqaano baan idin bilaabay hindida horta waxa weeyaan markii aan ka bilaabo dhanka ragga horta hindida raggooda in la guursado way adag tahay iyagana sidaa ka dhigtay because waxay ku jiraan hindidu dadka ugu cunsurisan dunida ay ku jiraan especially dhanka jinsi wadaaga yani waxa weeyaan badanaa eg hatta waxa soo qaadanaynaa markii aan leeyahay hindida raggooda in ay guursadaan gabdho ka ajnabi ah waxaa dhacda boqolkiiba 98 macnaha 98 qof 98 ka nin ee hindida ah yaa laba kamid laga yaabaa inay ka guursadaan qowmiyad kale waliba iyagoo aan ku qanacsanayn family ahaan xataa aad loogu diido lagana dagaalna ma garanaysaa lala galo oo ay dadku ay qanacsan inuu guursado gabar hindi ah oo uusan guursan gabar ajnabi ah okay hindida ragga marka halka ay gabdhahooda marka waa caadi gabdhahooda waa la guursan karaa wayna ogol yihiin maanta dad halkan ka baxdana de gobolkan magaciisa ay weer adag heer darbaar la dhaho xataa Soomaalidu badanka ay wax ka soo waxbarasho ahaan u aadaan gabadhood ka soo guursan kartaa Mumbai gabadhood ka soo guursan kartaa Delhi-na gabadhood ka soo guursan kartaa hindiyad ah walow de gabdhaha Soomaalidu waa igala qurux badan yihiin marka waxa weeyaan marka saa ku leeyahay waxa weeyaan gabdhahan hadii ay jiraan macnaha gabdho ku fikiraya nolosha in ay la wadaagaan nin hindi ah sababta ay heesahooda isku soo saaraan sidoodana ugu ciyaaraan macnaha waqti badan ag fiiri yani waxyaabaha la diyaariyo hees way fududaan kartaa erayo in la diyaariyana way fududaan kartaa balse dance yani wuxuu ku jira wax maskax kaliya lama gelinayo waxa la gelinayaa daal fara badan waxa la xubnaha ku xal qof jiim ku cusub oo kale marna saa istiraahdo marna sidan marna saa marna sidan marna sidan tiraahdo marna indhaha bilig ka siiso indhaha laftikooda jimicsi baad siisay yani waxa weeyaan de waa wax waqti badan qaadanaya okay gabdhahaas waxa laga yaabaa inay saa u sameynayaan bilaa laga yaabaa wiil hindi intuu ku arko inuu yiraahdo gabadhan waa hindiyada caadi arma isku qabataa macnaha taas waxa laga yaabaa gabadh Soomaaliyeed maanta inay ku fikirayso in ay ku hesho xiriirka nin hindiya gabdho badanna ay isleeyihiin ugu dambeyn waxaad helaysaa nin hindiya oo aan nolosha la wadaagto okay nin hindiya yani waxa hawshiisu adag tahay okay way kaba soo qaad nin hindiya oo kula xiriir kara friends waa noqon kartaan waa is shukaansan kartaan sheekana waa idin dhaxmari kartaa okay nin hindiya maanta waad la sheekaysatay waa waqti baad wada qaadateen cashaad wada aadeen waad ma garanaysaa macnaha jawi macaan baad wada qaadateen bini aadam baad waa jeclaan kartaa okay way markaad jeclaatid itiraadinaad guursato waxay u badan tahay ninka hindiga ah family-giisa hadduu xataa islaam yahay ayagana islaam ay yihiin inaysan ogolaanin in uu guursado gabar Afrikaan ama Soomaaliyada inaysan ma garanaysaa cidooda ogolaanin okay sadarteed macnaha waxaan kaaga wadaa walaal hadda arrinta ku fikiraysaa hadaba kala waana isku jeclaanin nin hindi ah macnaheedu ma aha inaan ilaahay gabdhahaasi hindi bay ku fikirayaan laakiin aniga maskaxaan waxaan sidii laga yaabo inay ku fikirayaan sadarteed baan aniguna ma garanaysaa walaal kaaga waaninaya because hindida gabdhahooda in la guursado fududahay laakiin raggooda in la guursado way adag tahay tusaale yar baan ku soo qaadanaya inta actor ee hindi ah ee maanta aad taageerto ama aad daawato ama filmaantooda aad daawatay miyaad garanaysaa hal nin oo naag ajnabi qaba waa maya dabcan kulli wax wada qaba naag hindi la taas tusaale ku actoradaas waa indhihii wadankaas macnaha adiga laftirkaaga hindi waxa ku baray waa Salman Khan waa Amir Khan waa Shah Rukh Khan waa Ranbir Kapoor waa Akshay Kumar
macnaha dadkaasaad ku baratay iyo gabdhaha sida Kajal, Krishna Kapoor, Kareena Kapoor, Katrina Kaif, Priyanka Chopra ma garanaysaa dumarkaas baa ku baray hala yaabina aniga laftirkeygu hindi waan soo daawaday walow hadda aan saa u sii daawanin oo ma garanaysaa ay macnaha sheekadoodu markii dambe isku wada ekaatay aan ma garanaysaa kor uga baxay oo dhanka ay America aaday macnaha maadaama Mareykanka ay kala duwan yihiin sheekooyinkooda okay waxaan uga soo gudbay intaas inaan wiilasha hindiga la guursanaynin waxa iigu xigta marka waa sidee macnaha hindidu maadaama hadda maanta jacaylo macnaha dad isjecel dad isku ooyaya dad jacayl dartii ma garanaysaa isku dilaya dad mindi isu gelin dad meel isaga tuuraya ay guurso haddii kale waxa weeyaan anigu waan dhimanayaa la'aanta ma noolaan karo maadaama aragteen okay hindidu jacaylkoodu marka waa sidee ma tahay nolosha dhabta ah hindida nolosha aad fiirsanaysaa maya hindidu haddaba sidaa maaha hindidu waxa weyn waa dadka kaliya ee aysan islahayn 90% waxa ay noo soo metelaan iyo ay waxay ku nool yihiin hindida 98% halka ragooda aan la guursan karin 98% hindida labada qof ee isguursataa jacayl isku guursadaan waxay isku guursadaan reason labada qof intaas ay isjeclaayeen intaas ay isla socdeen intaas hindidu waxa weeyaan waa wadanka kaliya ah ee xagga jacaylka ugu liita marka Soomaaliduna maanta ay rabaan inay maamaha jacayl soo qaataan bismillah walaal waxa weeyaan jacayl badina hindi wax ku galeen bay siraadaan walaal hindi xagee jacayl isku arkeen waa hubaal yani waxa guri lagu sheego inuu guriga jacaylka yahay baa ka samaysan oo Taj Mahal bahmiya ka samaysan hindiya ma garanayo sababtaas waxa laga yaabaa in halkii jacayl soo maray kaas ahaa iyaga laftirkoodu ay la yaabeen macnaheedu waxaan kaaga wadaa reason baa waxa weeyaan hindidu ay isku guursadaan balse isku guursadaan jacayl hindidana badanaa yani waxa qofkan reason bay ku raacaan markii ay guursanayaan waxaan kaaga soo qaadayaa yani waxa dadka jacaylada soo wadaagay ee hindida ay caanka social media ka caanka ka ama Instagram caanka ka ahaadaan ama yani waxa weeyaan jilinka dhankiisa caanka ka ahaadaan xiriir jacayl way soo sameeyeen balse nolosha lama aysan qaybsanin qofkii ay jeclaayeen oo soo hadalkaygu kuma dhicin haddii aan soo qaato qisooyinka jacaylka ee laftirkoodu banaanka yaala ee laftirkoodu la fahmayo amaba actrishooyinka iyo actorooyinka isjeclaaday ee hadana iswaayay macnaha dadka maanta aad ku dayataan macnaha maadaama hindida dadka maanta aan ka aragna dadka yihiin baan ka wadaa waxa kamid ah Shahid Kapoor actor kala dhaho iyo Kareena Kapoor oo kale xiriir jacayl oo dheer ba ka dhaxay laakiin ugu dambeyn waxay si reason ah isku guursadeen Saif Ali Khan laakiin xiriir iyo been isma weelin way jirtay xogaa maalmo social media way haysteen laakiin ugu dambeyn markii waalidiintooda iyo dadka hindidana waxay sheegayeen dad baariyaal oo waalidiintood ka dambeeya badanka waxa ay waalidkoodu rabaan ay qaadaan waalid xataa ma aha dadkaas qabiilkooda xataa way ma garanaysaa qiimeyn okay Kareena waxa la dhahay markii ay tiri Shahid ka waran hadii aan isla shaacimaano waa la yaabay waxa lagu Shahid muxuu haystaa waa miskiin yar oo ma garanaysaa fanka ku cusub muxuu ku tari karaa waxa weeyaan labadiina hadaaba ka caansanba marka muxuu ku qaban karaa waxa weeyaan nin weyn oo ma garanaysaa muddo ku soo jiray Bollywoodka waa la isku qabo kadib ay Saif Ali Khan ma garanaysaa tabca macaan u dhigtay hawada u qaaday beerka uga fadhiistay ma fahanti waxa ku soo haray hadda ka hor inta uusan aad u sii caan bixin isla gabadha walaasheed Krishna Kapoor iyo Abhishek maaragtay Bachchan maaragtay ninka la Abhishek oo uu dhalay ninka Soomaalida ay taqaano Ali Dheere magaciisa Amita la dhaho isagana hadda koor wiilkiisa wuxuu ka helay oo rabay nolosha la wadaago Ashwarya Rai Kapoor wuxuu rabay in Krishna Kapoor oo nolosha la wadaago okay nolosha la wadaagay Krishna Kapoor iyadana sidoo kale waa la yaabay ninkan muuqaal badan ma laha hindida waqti badan baad ku soo jirtay filmaanta hindiga waa kan waa kii kala marka macquul gal ma adeeg ceeb iyo sharaf dhac ku tahay ninkaas inaad guursato okay sidii baa lagu diiday waxayna guursatay nin kale oo Sanjay Kapoor la walaw markii dambe ay kaldeen ninkaas maxay guursatay hanti badan u lahaa aad u hanti badnaa hanti ayay ku guursatay waxaana ka caansanaa Abhishek ninka ay guursatay balse hanti ahaan hindiga dhexdeeda ninkaas macnaha magac weyn ku lahaa oo hanti badan haystay walaw uu aabihiis hanti lahaa in badan uu ku jiray balse aabihiis laguma raacayo يعني إحنا قفكة شخصية ديس. أوكي أشواريا بقولستي أبيشك واحد كقولستي ريسن أشواريا راي يعني وقت الشدير وقروح بدن يعني إحنا راي أميتان وضد دير يجلب تركودو وقروح قريب كنا خون كرا هنتي بدن هايستا سادرتي
ashwaariya rayna odaygay guursatay abisheek ma guursanay macnaha hindida dhan waxaan ku sheegay jacaylku agtooda waxba kama aha reason qofkan muxuu haystaa muxuu magac leeyahay bay badanaa isku guursadaan macnaha dhanka jacaylku waa dadka ugu liita okay Soomaalida aan soo barbar dhigay marka waxa weyn jacaylka hindida iyo jacaylka Soomaalida anigoo aan u kala yaxanaynin hindiya iyo Soomaaliya ama bas Soomaalida iyo hindida waxa weeyaan Soomaalida boqolkiiba boqol kaga fiican ka jacaylka hindida ma fahanteen waxa weeyaan Soomaalida waxa isticmaalaada wiil iyo gabadh mii jooga oo 4 sano 5 sano wada socda oo wiligood filim jacayl daawan jacaylka maxaa ku abuuray qalbigooda ku abuuratay 5 sano 6 sano iyagoo wada socda iskuursadaan hadii la isku diido wiilka iyo gabadha baadiyaha jooga way isla baxsadaan waxayna isku guursadaan meel uusan labada ehel midna ka duwanayn kadibna waxay ku qasbanaadaan ehelku inay dhahaan wiilkii gabadha la baxsaday soo celi waanu ku siinaynaa waanu ku dhisaynaa maadaama gabadhi bacla ka furtay okay ilaa heerka maxay u gaareen waa wiil yar oo reer miyi ah oo macaystu halka u joogto iyo gabadh waxa weeyaan iyada dhanba caana ka soo uraya caana caadi ka soo uraya waxa weeyaan saas isku guursadaan way isjecelihiin ma kala maarno okay marka hore way u bandhigayaan wiilkaas aan rabaa inaan guursado reality hindida halkaas ka simanay ninka waxa ma haysta geel badan reerkooda ma haystaan waa gaajo waa isna baba laakiin gabadhaas waxa u muuqda just shakhsiyaas hantidiisa u muuqato because waxa qofka noloshooda soo qofkan hadhow oday boqol halaad haysta yani kuma faraxsana iyada macna laakiin reerkoodu way faraxsan iyada taa ka duuleysa habeen gudcura bay ma garanaysaa isla guurayaan iyaga asxaabtooda sidii isku guursadaan okay hindidu waxaasay matalaan marka wiili gabadh isla baxsaday matalaan mana sameeyaan gabadha hadii lagu diiday hindida waa lagu diiday lama baxsan kartid ninka hindiga hadii lagu diido waa lagu diiday iskama ka guursan karo wax macquul gal oo aqliga galay midna ma aha okay marka gabdhow yani wax weeyaan waad iskala saaxiibi kartaan waa iska shukaansan kartaan laakiin ogow hadaba qof aadan helaynin baad jeclaatay oraahba waxay tiraahdaa ama waxay ka hadlaysaa macnaha qof baad maanta jeclaatay markii aad jeclaato macnaha waxa weeyaan waxay leedahay sugitaanka qof yani waxa nolosha kugu cidliyay waxa ay la mid tahay adigoo sugaya dhanka ay qorraxdu u dhacdo inay ka soo baxdo hadana macquul kalmiya dhankana u dhacaysa dhankana way ka soo baxaysaa macnaha labada dhan mid bay garanaysaa u dhacdaa midna way ka soo baxdaa okay way qofkan waa la xiriiray waa socotay walaal waxa weeyaan de macnaha markii aad jacayl iyo guur iyo wax gaadho reerkiisa la tagaa la yaab hayaa ma afrikaankan war naga tag adigoo ka qurux badan boqolkiiba boqol gabdhahooda bal gabdhaha hindida iyo gabdhaha Soomaalida isku fiiri kuwa horta Soomaalida dhii sheegay waxyaabo badan oo dadka ay kaga duwan waxay dhii doonaan kaafi cabdimaan Soomaalida oo amaan kala dul dhacay dad kale waxaaya baba eg oo fiirso qofka hadii in yar xataa dunta Soomaalida ay ka maqan tahay afkiisu soo uraa korkiisa kore wuu uraa xataa si walba islaam u yahay si baas u shiiraya si uu wax uga khaldan yihiin Soomaaliga dhabta ah shimbiri haduu cadiga iloobay waxa laga yaabaa inaan afkiisa soo urin okay Soomaaliga afkiisa soo uro korkiisuna soo shiiro ee Soomaaliga sheeganaya hadaba Soomaalinimis wax yarba ku jira xogaa yar oo dhacdhaca manaa lagu yiri jira waa in baaritaanka lagu sameeyo nana ila yaabina yani waxa weeyaan anu mar walba Soomaalinimada jeclaa okay waxa weyn marka jacaylka yarkii baadiyaha ahaa Soomaalida ahaa yarkii hindiga yarkii Soomaaliga ahaa ee aad saaw egtay yarkan hindiga ma aka timihiisa ma jilecsana maxay baba aatri hadaba way jacayl iyo nolol midkeed ka helaysaa jacayl iyo nolol okay ajnabi oo marka soo qaadatay iyo ninka Soomaaliga ah xudhay doonaan maanta kaafir ragii Soomaalida amaan kala dulacay ajnabiga iyo ninka Soomaaliga differentiga u dhaxay ku sheegan ajnabiga Soomaaliga ragga way dilaan way ku qayliyaan warbuuq iyo qaylaba dhaafto waxa weeyaan in yar uu ku geerina naga bax waxyay wasakhada bas baa Google loo dhigtaa oo ma garanaysaa leeyahay wariyaa waad khaldantay baba hadaba ajnabigu way jarjaraan walaal markaas ay boorso ku qaadan meedka xaasaskooda meedka caruurtooda waxaas oo dhan way gogooyaan ma jirto macnaha waxa weeyaan aabihi maanta uma dacwoon kartid ma ogaan kartid macnaha gar baan u dhiganayaa iyo waxaas oo dhan ma oran karaysid weeyaan ninkan markii uu kusmeel buu kula degayaa aabbahay hooyada hadii looga dacwoodo xataa wuxuu ku leeyahay adiga as qabnay aabbahay hooyada maxay rabaan iyaga ahaan yani waxa weeyaan wax badan bay ma garanaysaa aan ku kala duwanahay aabihi hooyadii inta la fadhiistay maanta ma oran karaysid
aabiyo hooyo yani wax weeyaan ninkii wiilkiina igala hadlo oo gar loo dhigtay iyo gogol iyo xeer idinkala qabtay iyo waxaas ma jiraan waa isku dawaqaysaan walaal Soomaaliga yareed eryanaysa ma garanaysaa aabihii iyo hooyadii dad iyo tal iyo adduun aad ula tagayso ma aha marka asxaabta sharafta leh ma garanaysaa especially gabdhaha TikTok iyo wiilashaba ogaada dhansiyada qaar oo aad hindida uga dayanaysaan qaarkood inay yihiin cibaadadooda qaar baa cibaada walaal wal cibaadaysanaysa isma ogid ya waxaad hor taagan tahay ma garanaysaa waa magacyadan sanamadan iyo waxaan iyo waa caabidanaysaa dhahaan baad hor taagan markaas maaragtay saasta is haysaa wad marna sidan leedahay oo adu ma garanaysaa cibaado badan baa ku jirta ciyaarahan la iskama ciyaarayo ma fahad waxaan aad saas iyo ma garanaysaa cibaado badan baa ku jirta adna waad iska ma garanaysaa ciyaaraysaa ma fahad marka sidoo kale gabdhaha hindida iyo gabdhaha Soomaalida runtii waxa aad u qurux badan wallahi gabdhaha Soomaalida waa gabdha gaaban war waxaan filmada dhigal arkaysaan ragooda iyo dumarkooda inta waa la soo xulay laakiin aadiyan waxa weeyaan waa dad farxan wiilasha hindiduna wiilasha Soomaalida ma gaadhaan gabdhaha Soomaalidana aad bay uga qurux badan kuwa hindida laga qurux badan 100% because waxa ay balaayo wada jab yar oo ma garanaysaa xaafadaha dambe ma garanaysaa ha iska fahmo garanaysaa isaga ku yihiin meesha idinku ma garanaysaa sarkatiin marka waxa weeyaan de walaal idinka dhan walba ka qurux badan gabadha Soomaaliyeed jirkeedu waa gabar ma garanaysaa dhameystiran laakiin wax saa u qalloocdo ayada dhanba wada gaagaaban oo soo shiiraysa haddii aad tiraahdo waxa weeyaan Allah haddii gabadha soo ekaan lahaa ilaahay walaal dib ugu noqo oo ma garanaysaa bal dambiga iska because waxa weeyaan ilaahay hindi kuma beekaysin naagi hindi ilaahay kuma beekaysin ma fahad marka asxaabta sharafta leh intaasaan uga baxaya xumaan hay fahmina gabdhaha Soomaaliyeed aan soo qaatay yani waxa gabdho walaalaha yar kala kuwa ila dhashay oo kale bay ma garanaysaa yihiin xogaa bay ilaahay raxmaatay in wax badan aan idinka waaniyo oo ma garanaysaa wixii de marka aragtideeda ah way khaldanaan kartaa aragtideeda aragti khaldan waan dhiiban karaa balse aniga saasa ila qurux badnaato waxaan siri amay khalad ku jira okay iyagana wiilashan de iyaguna iska dhigaya ma garanayo wiilashan de iyaga laftirkooda hindiga waa maxay de walaal goorma laga tagay goorad hindi iska dhigto aad saa istirtiraahdo ma garanaysaa aad gabadh iyo wax hoos fadhiisato waxna waa sidii wallahi bilaa anagoo yar baa ma garanaysaa qolalka kula dhuumin jirnay markaan yaryaraan jirnay hindigan soo daawano markii aan rabo hadda inay meetum ama iyo wax iska dhigo waxa weeyaan maya waxaan anagoo dhowr ciyaal intaas soo kaxaysano oo qol soo xidhano baa ma garanaysaa maanta dhan filmaantii hindiga gacan la qabtay iyo qof gacan lagu wada dhab laga siiyay iyo waxaas iyo ma garanaysaa slow motion anaga kaliya oo saarano waan la dhuumin jirnay wallahi wadada kuma naan sameyn jirin idinkuna kaamarada intaad soo istaagtaan oo aad istuubtaan gabdhihi wiilal labis qaadataan baad ma garanaysaa maanta dhan saa isleediin hindi meelo iska dhigaysaan oo aad ma garanaysaa isku fiirnatay waaba ma garanayaba Soomaaliya ma daawanayaba mid kale aad dhaqankaagii mee walaal dhaqanka sidana dad baa fankoodii kugu soo gaarsiiyay oo macnaha wax weyn adigoo Afrika waliba Soomaaliya ka sii jooga oo qof Soomaaliyeed ku soo gaarsiiyay way kula qurux badnaatay waxa laga yaabaa adiga laftirkaagu dhaqanka aad leedahay maanta hadii aad soo bandhigto Soomaaliyeed oo aad keento waxa laga yaabaa iyaga laftirkooda inay dhahaan waa maxay waxaan iyaga laftirkooda kugu daydaan waa inaad dhaqankaaga faafisaa fiir intaas qof baa kugu xiran laakiin intaas qof maxaad u sheegtaa kaajilsana istiraahda Krishna Kapoor baa ka daran waxa weeyaan markii Salman Khan soo islaha markii dhaweyd wallahi sidan u socday ma garanaysaa Ranveer Singh baa sidan u socday markii dhaweyd gabadha ma garanaysaa klibkii soo xusuuso maanta dhan walaal filim hindi baa dadka raanicinaysa ciyaal baa ku daawanaya oo ma garanaysaa dhaqankii aan ka garanay dhaqankii waxa uu fahmayaan ku inuu ku arko inay saas wanaagsan tahay kaas wixii wad soo labisanaysaa wax kala iska dhigaysaa qaarkiin jean bad soo qaadaysaan biri bad isku qaarkiin dhar bad isku dhajinaysaan ha mid kale gabdhaha dhexda waaweyn idinkana waa ayaan idin soo gaarin walaal idinkoo dhex waaweyn bad isjibinaysaan gabdhaha way aalamiteeyeen oo jean iyo adduun iyo waxay soo sameeyeen dhexda saasay ka dhigeen waa wax la soo xulay oo ma garanaysaa muuqaalkooda certificate-kooda shahaadadii wataan wax weyn waa muuqaalkooda siday ka dhigeen bis ma fahant adigoo ma garanaysaa gabigaagu laba foosta oo ma garanaysaa doorkii kiilo bariis sarida habeenkiina yani waxa weeyaan 16 xabo canjeera iyo ma garanaysaa adduun saa isugu ma garanaysaa daraya macsariyo moos saa iskugu barfuuqiyo ma garanaysaa de meel waliba ku weynaatay bad ma garanaysaa rabtaa inaad iska dhigto gabadh iska soo shaqeyso aalamita iyo adduun iyo cuntada ma garanaysaa gaaji isku disho saas iyada dhanban sideedii baa saaha isleeyahay meesha ku jijimo wala laftirkaagu waxa weeyaan meelaha qaar oo laga dhala xataa in wax ka gaadhaan baa laga yaabaa
ama garanaysa ma dhaleys baad noqoto marka waxyaaba qaal isku qasabto laga yaabo in muddo loo alamiteynayo arta inaad adoon alamiteynin kaamara iska soo qaadato maskaxda la sameyn kartaa bas sida ku soo gashay way macquul meetay marka waxa weeyaan walaal macquul maaha waxa weeyaan anigu waan idin la talinaya talo bay iga tahay gabdhaha soo qaatay xumaan ay fahmina gabdhaha sida wiilal bela shan maanta inay xanaaqaan balay waliba markaad wiil walaashi wax ka sheegto sida wax xanaaqama taqaana hadda ka hor sheekeer baa idinka sheekeynaya anigu waxa ila dhartay gabar ayaan cabdi la yiraahdo waxa weeyaan marka nin baa ka baqan jiray mar walba ka baqan jiray wada walba hada arko dhas loo kasta dhacda maalintii dambe anigu walaashay la socday qabtay ma fahanti walaashay markaa aad gacmo taag iyo la dagaaliyo wax isku day moogta gooran xanaaqay bade anoo hawada ninkii bade ku fadhiyo ma arkay feer ku garaacay ilaa inuu awooda meeshan ka keenay ma garanayo maalintii wixii ka dambeeyay wado iga maray macnaha waxa weeyaan ragga dhanka hablaha laga maro hadduu xaasu qabay tahay hadday ma garanaysaa gabadh la dhalatay yahay waxa laga maro macnaha ragga qaar oo gabdhaha soo dhasho aan xumaan kama wada manay gabdhaha soo xumaan waa gabdho fiican oo Soomaaliyeed waxa ugu sheegay bade yani waxaan ka soo qaaday mid la dhalatay hooyadii abahay dhaleen oo kale يعني وحوي ملاك قار إن تكسر على ترى حيابك كنا عارفة مثال دي جديد النجدة ده ولا تالنتي يا واحد كلام خسارية دقن كم كرنا يساعد عن تيا يعني دهسية في عبا سومالي كل شيء قار ده بدل وريتني حتى إنه يلفتكينه قار عن لنا هيدا شيء قار ما كرنا يساعد وحبض ده هذا بقول دقنوا ما كرنا يساعد كل عيار كرتو باتشرة يدو كل شيء اللي يرى يوم راب كسمية إسكندر ريكال بيتك يدو قلت كا ونك راب كراينا يو هذا لفتكابو واحد كجلس على قمة كلا ضد كيبي لسه حكودي دي إن تلاحظوا قرح دو أرورتي قيم سيف اللارا أبقى سروبو ضرور مذاب كقارسي نفتد قنعسيبا كو قشوع ذيو وانا كو قريسي إن تلاحظوا ما قرنا يسا oo ma garanaysaa dhaqanka dansiga ciyaaraha Soomaaliyeed laakiin hadii aad xaggan iska jeebiso aad ma garanaysaa oo mama tetema aad ma garanaysaa ka baxdido dadasheento aad la fikirto dhaqamada kale baad ma garanaysaa faafinaysaa wiilasha ay dhaha waxa la sheegay walaal baliyo kana tikin waa iska ciyaar hada doontaan laakiin bal teenina ku soo dara inta kale gabdhaha ku hamiyay hindidana iyadana waa la sheegay inta sano ka baxay barnaamijka walaal hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar channelka ismadaanto mar walbana waxaan jecelahay wixii aan qof walba aan bulshada ku dhaamo waa garanaysaa inaan u sheego wixii khalad ah shaydaan bay xagiisa ahaatay wixii saxana Allah xagiisa ahaatay waxaan idin sheegayaa sidaa iyo nabadgelyo